آه، بسم الله الرحمن الرحيم. وزير ومعتصم تهي قدومي يريسو مادام هذا عشرة نقول عزومتي ارتوين هذه اللي قابل لعبة هذا الكلام. marka waxaan leenahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waa soo socotaa hadda duqnimadana way soo dhowdahay madaxda dawlad goboleedyada gudoomiyaashii hore oo gobolka Banaadir oo halkan saddex kamid ah inala fadhido golaha wasiirada ee dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka xildhibaanada labada aqal oo ay ku jiraan qaarkood dad soo halgamay oo ku ka yahay senator general Qaybdiin iyo professor Dr. Dufle iyo dad kale oo badan iyo dalxa dhammaan dadka halkan jooga oo ka socda qaybaha kala duwan ee dawladda iyo madaxda cusub ee gobolka Banaadir kulligood fanaaniinta qaranka kulligood gaar ahaan hibanuura iyo nakruma waa idin soo dhaweynaynaa horta ku soo noqda waddankiina hooy qof walba waanan salaamin waxay ku salaaman tahay masiirka iyo mas'uuliyadda ay halkan ku fadhido ugu horeyntii aniga oo ku hadlaaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo dhammaan madaxda dawlad goboleedyada iyo golaha wasiirada waxaan ka mahad celinayaa cashadan marti sharafka ah waan ka gudoomiye waan ka gudoonay gobolka Banaadir intii soo qaban qaabisana waa u mahad celinaynaa intaa ka sokow rag badan ayaa iga horeeyay oo hadalkii waa la yiri waliba gabdho badan ayaa naga sii horeeyay oo ay ka mid tahay Jawaahir Baarqab kaalay bal adigu Jawaahir ka daba hadal caawa waxay tusaale ka tahay saddex shay kow sida la sheegay horumarka tartiibka ah laakiin sharaftu ay ku dheehan tahay oo ay u muuqato ummadda Soomaaliyeed inay ku tallaabsanayso labo soo dhawaashaha dadka gobolka Banaadir iyo dawlad goboleedyada iyo saddex in madaxda dawlad goboleedyadu iyagu ay ka warbixinayaan hanaanka dawladnimo iyo meesha qaranku u socdo waa iftiinka aan caawa halkan ku fadhinayada lafteeda waxaan isugu nimid inaan ka hadalno arrimo masiir u ah ummadda Soomaaliyeed ajendayaashii aan ka hadalnay markii aan isu nimid waxaan ka hadlay walaalahay laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego sanadka 2018 waa sanad muhiim u ah dalka Soomaaliyeed waxaan kulligiin markaa idinka codsanaynaa inaad gacan nagu siisaan inaan ka wada hadalno oo ka heshiino sida ummadda Soomaaliyeed ay uga kaaftoomi lahayd tuugsiga uga bixi lahayd gaajada una soo saaran lahayd khayraadkooda waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan in la dhammaystiro dastuurka qabyada ummadda Soomaaliyeed waxaan idinkala codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan inaan go'aan ka gaarno nooca doorasho uu dalku yeelanayo waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan dawlad noocee ah ayuu dalku yeelanayo waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan cadaalad noocee ah oo dalku heshiis ku yahay ayaan yeelanaynaa waxaan ka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan dal noocee ah ayaad rabtaan inaan yeelano xiriir noocee ah ayaad rabtaan dalka dunida ku xeeran inaan la yeelano su'aalo waaweyn oo sanado badan ay qaadanayso in laga jawaabo ayaa hortaagan ummadda Soomaaliyeed 2018 iyo 2019 haddii aan 2018 su'aalahaas aad ku adag la isweydiin
2020 kama gaarayna meesha aan joogno waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ka soo baxay shirka uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ugu horeeyay in la bilaabay in la aqbalo inaan ka heshiino sidii loo qaybsan lahaa khayraadka oo lagu bilaabay kalluumaysiga in loo ballamay 28 Maarso in la isugu yimaado Baydhabo oo laga heshiiyo khayraadka intiisa kale sidaan ula soo bixi lahayn in lagu heshiiyo marka la isugu yimaado waqtigaas isaga doorashada noocee ah ayuu dalku qaadanaya laakiin waxaa la isla gartay oo aan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo haddii ilaahay nagu guuleeyo inaan ka jawaabno su'aalahaas adag in awoodda loo soo celiyo shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay madaxda qaranku waxay isla garteen inaan gelino xoog iyo maskax walba oo aan awoodno si dalka loo gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod sidaad aragteen communiqueegii ka soo baxay shirkii madaxdu ay isugu yimaadeen ayaa lagu go'aamiyey in laga bilaabo maanta aan ka shaqeyno in dalka la gaarsiiyo doorasho su'aalahaas waaweyn oo hor yaalla ummadda Soomaaliyeed oo madaxdii igu horeysay ay ka hadleen inaan diyaar u nahay inaan u jawaabno waxaan soo jeedinayaa laba shay kaliya qof walba oo Soomaaliyeed oo damiir leh oo doonaya inuu arko tilmaamihii madaxdu halkan ay ka muujiyeen oo ah inaan ku noqono ka wanaagsanaano sidii ay Muqdisho ahaan jirtay iyo dalka intiisa kale gacanna sii labo qofkii aan gacanna siinayn oo aan rabin inuu gacanna siiyo waxaan ka codsanay